بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا وروحي عالم كان نغا سو غاري oo kaga iimaanaya xarunta dhexe ee telefishinka Somali Channel ee magaalada London. Qodobada warkeena ugu door garoona waxa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Burundi oo ciidamo ka joogan dalka Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay kula kulmeen qaar kamid ah mas'uuliyiinta sare ee dawladda dhexe ee wadanka Soomaaliya. qaar kamid ah golaha xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxay ku soo bandhigeen qorshe howleedkooda wasaaradoodu ay qabanayso 2014 dibadbax ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay kaga soo horjeedaan shaqo joojinta lagu sameeyay qaar kamid ah ciidamada howlgabka ah ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyana dib ayuu ugu laabtay magaalada Hargeysa iyadoo siyaasadda Somaliland ay cirka isku shareertay ayaa golaha guurtida ee Somaliland waxa uu sheegay inuu dhexdhexaad ka yahay mooshinada kala duwan ee golaha wakiiladu ay soo gudbinayaan iyadoo madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyana uu iska fogeeyay inuu wax luga ku leeyahay kadib eedeyn uga timid gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga wadani. wararka naga soo gaaraya gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya waxay sheegayaan in dhismaha wado la doonayo in laga sameeyo dhinaca deegaanka baxdo oo hoos timaada maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa waxa lagu soo waramayaa in dadka ku dhaqan deegaankaasi ay doonayaan inay iska kaashadaan waana magaalada Cadaado dhinaca koonfur bari ka xigta. musharaxa madaxtinimada xisbiga mucaaradka ee UCID iyo ku-xigeenkiisa ayaa maanta waxa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Berbera. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxa uu ka qayb galay kulan shirweynaha afraad ee dalada ururada bulshada rayidka ah oo lagu qabtay magaalada Garowe xarunta dowlad goboleedka Puntland waxaana daladu ay ku dooranaysaa hogaanka cusub ee ay dalada ururada bulshada rayidka ee dowlad goboleedka Puntland yeelanayso. intaasi waa qodobadii warkeena ugu door garoona daawadayaal inta aanan u guda galin warka oo fidsan waxaad u diyaar garowdaan qadar adeega bulshada ah.